waxaynu bilaabi doonaa qaybtii labaad ee qisadii tuugii halista ahaa ama dambiilihii halista ahaa ee ka baxsaday xabsiga kadibna nolosha cusub bilaabay iyadoo aanay aqoonsanin ciidamadii ku raad joogay ee ammaanku waxaana qisada qaybtii hore inoo joogtay Michael Hayes oo caawimo ka dalbaday gabadh ay hooyadii saaxiibo ahaayeen si uu u sii noolaado ugana maqnaado xabsiga Michael Hayes gabadhii daada ahayd ee uu tagay waxa ay siisay magicii odaygeedii geeriyooday oo la oran jiray Jack Wiga iyo wax kasta oo uu baahnaa balse xataa haddii uu samaystay aqoonsi cusub iyo magac cusubba ciidamadu way aqoonsan karayeen muuqiisa soo laabashada Michael Hayes waxa ay ahayd mid khatar ah waxana uu sheegay in sababta uu u soo laabtay ay ahayd inuu garanayay hal ama laba qof oo uu islahaa way ku caawin karayaan sidoo kale erag oo ahaa dambi baare ka howlgali jiray Tamba oo ay kooxdiisuna ku raad joogeen dambiilayaasha Hayes oo kale ah ayaa isagoo adeegsanaya khibradiisa waxa uu sheegay in dambiilayaasha baxsadka ah sida Hayes oo kale ay ka tagaan raad sida iyaga oo waca qoysaskooda ama saaxiibadooda Michael Hayes waxa uu yimid goob telefoonada laga wacdo waxana uu doonay in uu la hadlo qoyskiisa balse waxa uu qaatay go'aan adag isaga oo ka dhaartay in uu la hadlo reerkooda taasina ma aha wixii ay filayeen booliisku muddo markii Hayes oo hadda la baxay Jack Wiga isla markaana ahaa dambiilihii jeelka ka soo baxsaday ka soo maqnaa xabsiga waxa uu bilaabay shaqo isaga oo ka howlgalay hotel yar waxa uu si taxadir leh u samaystay saaxiibo kooban saaxiibadani waxa ay yaqaaneen magaca Jack Wiga waxana ay sheegeen in uu ahaa qof wanaagsan oo aan ka daahin shaqadiisa oo aad u degan markii aan la kulmay waxa uu ahaa qof degan oo faraxsan oo ka warhaya saaxiibada ay shaqo wadaaga yihiin laakiin Hayes waa nin digtoon waxaana uu tagaa gurigiisa marka uu ka baxo shaqada waa dambiile baxsada waxaana uu sugayaa oo iska eegaya inuu la kulmo ashkhas mar kale ku celisa xabsiga Michael Hayes waxa uu bilaabay inuu waqti kula qaato goobta shaqada gabadh lagu magacaabo Ellen Mackler Ellen ayaa ahayd mid jecel xafladaha balse Hayes ayaa si degdeg ah ugu kalsoonaaday gabadhaas sabab jiray waxaana dhex maray xiriir laakiin Hayes uma sheegi karo sirta u qarsoon waxaana uu ka codsaday inay iska joojiso cabitaanka isaga oo ka fogaanaya inay qabtaan indhaha boolisku balse way diiday iyadoo le maxaad u joojinaysaa waan cabayaa sharaabkan Hayes ayaa ku yiri wax kasta kuma sheegi karo laakiin waxaan ahay baxsad waxaana ay tiri maxaad ka wadaa waxaana ugu jawaabay waxaan ahay dambiile baxsada waxaana uu ku yiri ma raba inaan ku laabto halka balse Ellen oo ka yaaban oo aan rumaysan karin inuu Hayes ka soo baxsaday cadaaladda ayaa u ballan qaaday inaanay cidna la wadaagi doonin sirtiisa ay xafidi doonto Michael Hayes muddadii uu ka soo maqnaa xabsiga waxa uu buuxsantay 5 sano lamana hayo meel uu jaan iyo cidhib dhigay balse wili kiiskiisa lagama hadhin oo waa ay ku daba jiraan ciidamada dambi baadhistu kamana warqabaan in uu magiciisii bedelay balse waxa ay sugayaan in uu qalad yar sameeyo oo ay ku aqoonsadaan amaba ay cid kale ka helaan xogtiisa 10 sano kadib iyadoo oo sidii loo raadinayo Hayes waxa lagu qabtay isaga oo maraya mid ka mid ah jidadka magaalada Tamba isaga oo wata gaari oo ay la socoto saaxiibtii ciidamada ayaa ku amray in uu gaariga joojiyo isaga oo naxsan ayuu isweydiiyay talow ma waxa ay ka war heleen inaan ahay dambiilihii baxsadka ahaa mise waxa la igu haystaa inaan wadada si khaldan u maray ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa Hayes ku yiri kan liisankaagi balse Hayes ma sito wax liisan ah waxaana uu isticmaalayaa magac been ah oo nin dhintay lahaa ciidanka ayaa qabtay Hayes oo xidhay waxaana uu dib ugu laabtay mid ka mid ah xabsiyada uu ka baxsanayay Hayes 10 sano ee u dambeeyay ee uu baxsadka ahaa waxa uu ku noolaa Tamba waxana uu isticmaalayay magaca aynu sheegnay ee been abuurka ciidanka ayaa u sheegay in ay garanayaan cidda uu yahay balse Hayes hadda
waxa uu haystaa qof kaliya oo badbaadin kara waana saaxiibadii Ellen laakiin waxa uu ka baqayaa oo ka warwaraya in ciidamadu ogaadaan qofka uu yahay waxaana Hayes lagu ganaaxay lacag dhan $500 mana haysta lacagta inta leeg sidaasi ayaanu habeenkii koobaad ku seexday xabsiga oo uu ugu hoyday isagoo oo ku halaan halaya soo dhaqsa Ellen haygaga tagin cidlada kaalay oo meesha iiga saar si degdeg ah maalinkii dambe waxa uu yimid Hayes nin askari ah waxaana uu ku yiri Jack Wigan soo bax waanu soo baxay waxaana timi Ellen oo sida lacagtii ganaaxa ahayd waxa aanu yiri isagoo aad u faraxsan aad ayaan u faraxsanahay Michael Hayes waxa uu ahaa nin nasiib badan ciidankuna may ogaanin xaqiiqadiisa waxaana isaga iyo saaxiibtii ay ku laabteen gurigii ay deganaayeen balse nasiib darro waxa aanu ogeyn inuu ka yimid daliil weyn maxaa yeelay ciidanka ayaa waxa ay isu geeyeen suulkii uu warqadda saaray isagoo oo wata magacan cusub iyo saxiixii hore ee suulka ee Michael Hayes ka yaalay xarumaha dambi baadhista oo isku mid noqday waxaana ay u malaynayaan dambi baadhayaashu in dambiilihii Hayes uu ku sugan yahay Tamba waxaana ay la xiriireen eheladiisii iyo saaxiibadiisii si ay u helaan warar la xiriira Hayes laakiin Hayes iyo Ellen waxa ay sii wateen shaqadoodii saaxiibadoodii ay la shaqaynayeen oo wax laga weydiiyay ayaa sheegay in uu yahay qof wanaagsan oo dumarka jecel oo degan laakiin ma garanayaan saaxiibadii magaca dhabta ah ee ninkan oo ah dambiile ka soo baxsaday cadaaladda Michael Hayes dambiilahani baxsadka ayaa waxa uu jeclaa bakhtiyaa nasiibka waxaana uu helay maalin maalmaha kamida warqad ay ku qoran tahay inuu ku guuleystay lacag dhan $5,000 balse nasiib darro mushkilad ayaa jirtay oo ma sarrifan karo balse waxa uu yimid saaxiibkii ay shaqo wadaagta ahaayeen oo u sarrifay intaa kadib Hayes aad ayuu u nastay oo isaga raaxaystay Hayes iyo saaxiibtii waxa ay bilaabeen in ay wada cabaan daroogada la nuugo lacagtiina waxa ay ku dhamaatay micna darro maalin maalmaha kamid ah Hayes saaxiibtii Ellen waxa soo waajahay khatar maalin maalmaha kamid ah waxaana ku adkaatay in ay sii xafido sirtii uu ku aaminay saaxiibkeed Hayes waxaana ay la wadaagtay saaxiibadeed oo ay uga sheekaysay xaqiiqada Hayes inta ay ka ogtahay